jawaabtu waxay tahay saddex shayga aad siisid waa la gaadhaa. waa jawaabta kooban. saddex shayga aad siisid waa la gaadhaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawow daawada, waa mar kale iyo walaalka Axmed Showqi. halkan waxaan kaga jawaabi doonaa su-aalo 3 ah ay asxaabtu soo weydiiyeen. fideogan waxaan kaga hadli doonaa gaar ahaan su-aashii koobaad ayaan kaga jawaabi doonaa. fideoga labaadna waxaan kaga jawaabi doonaa su-aasha labaad. fideoga saddexaadna waxaan kaga jawaabi doonaa su-aasha saddexaad. haddaba fideogan hadduu kusoo gaadhay si share garee si asxaabtii su-aalahay soo weydiiyey u gaadhaan, ama dad kale danaynaya inay hadaf iyo mustaqbal wax ka yeeshaan inay ka gaadhaan. waa fadlan, waa codsi. haddaba su-aasha koobaad waxaan u galo. su-aasha koobaad maxay ahayd? su-aasha koobaad asxaabtu waxay soo weydiiyeen kadib markaan mustaqbalka kasoo hadalay, aan mustaqbalka soo macnaynay iyo dariiqadaha uu kala leeyahay iyo siduu kala duwan yahay. waxay soo weydiiyeen mustaqbalkayga sideen ku gaadhi karaa. haddaba jawaabtu waxay tahay, haddii aad rabtid mustaqbalkaaga inaad gaadhid, mustaqbalku kala duwanaan karaa, nin kastaba hadaf gaar u yeelan karaa, nin kastaba hawl ay u taalo. sidaad ku gaadhi kartid waa sidan, sidooda fudud oo duuba. wuxuu u baahan yahay 3 shay. saddex shay waxa aad gelisid waa la helaa. waa maxay 3daa shay? 3 shay shayga aad gelisid 80%, 90% waa la helaa. anaa ku huba taas, anaa ku ballan qaaday. 3daa shay waa maxay? waa ugu horeyn waktigaaga, inaad wakti gelisid. ta labaad fikirkaaga, inaad fikir gelisid, wakti badan inaad gelisid fikirkaaga. ta saddexaadi maalkaaga, inaad maal gelisid. 3daa shay shayga aad u hurtid waa la helaa. dad badan ayaad arkaysaa isku fikir ayaa nahay, isagoo hawshiisu u gaadhay laakiin anigu weli waxa ma gaadhin. isku hadaf ayaa nahay, hadafkiisa isagu laakiin u gaadhay, anigu ma gaadhin. dad waxaad arkaysaa 10 sano hadaf daba socda aanan gaadhin. qofna uu ku gaadhay 3 bilood gudahood, qofna uu ku gaadhay 3 bilood gudahood, qofna uu ku gaadhay sanad gudahood. 3 sano ka qaadatay, kana 1 sano ka qaadatay. maxaa lagu kala duwan yahay? sababtu waa maxay? kana mu nasiib badan yahay, kana mu nasiib xun yahay? maya, jawaabta ma. haddaba qofkani wuxuu u huray fikir ayuu siiyey, maal ayuu siiyey, wakti ayuu siiyey, kadibna hadafkiisa u gaaray. haddaba marka aan leenahay waktigaaga sii, maalintii 1 saac masalan, ama maalintii 2 saac inaad siisid. toddobaadkii masalan 2 cisho inuu hadaf hebel yeesho. bishii 2 toddobaad hadaf hebel baa lana shaqeynaya. waa inaad wakti siiso u go-an hadafkan sidaad u gaadhid. hadba hadafku intuu weynin leegyahay ayaad waktigaa siinaysan weynaan karaa. hadduu hadafku yar yahay oo monthly uu yahay, ama hadafkiisa hadaf saa usii weyn hadduu yahay, waxaad gelin kartaa wakti yaro kooban. laakiin hadafku hadduu weyn yahay, aada u weyn yahay, wakti weyn buu ka rabaa. ugu horreyn waktigaaga geli. ta labaad fikirkaaga geli. qor, qeex. waxaad qortaa hadafkaaga iyo sidaad ku gaari lahayd, iyo dhibaatooyinka kaa hor joogsanayo, iyo dhibaatooyinkaas sidaad ku gaari lahayd. waxaad ogaan kartaa hadafkanaad wadid ma hadaf kula gali doonaa meel xidhan, mise waa hadaf aad xaqiijin kartid. ma hadaf caqligala mise hadaf caqligala maaha. waa inaad qortid. ta labaad, ta saddexaad hoo imaado waa maalkaaga. waa inaad maal u hurtid. wuxuu u baahan yahay, hadduu maal u baahan yahay waa inaad maal u hurtid. hadafyaashu way kala duwanaan karaa, saa hore usoo sheegnay. qofku hadafkiisu yahay gabadh hiblaayo inuu helo, waa normal. waa inuu wakti siiyo, waa inuu fikir siiyo, waa inuu maal siiyo. siduu ku siin karaa? wakti waa inuu siiyo, ama goodhi la hadlo, ama goodhi la kulmo. waa inuu wakti siiyo. warkaa wakti buu siiyey. fikir buu siiyey gabadha, inuu ka fikiro gabadha maxay jeceshahay, maxaa kusoo jiidan karaa, maxay iga rabtaa. waa inuu u fikiraa. hadalladu ku odhan lahaa waa inuu u fikiraa. maal, gabadho hadday u baahan tahay ninku inuu qurux badnaado, shakligiisa inuu ishagaajiyo, hadday u baahan tahay uu kusoo jiidan karo, waa inuu naftiisa maal geliyaa. haddaydan maal inay rabto, laakiin taa waan kasoo jeedaa. no maal. okay, haddaba inaan igu dheereynin video,
haddaba waa intaa shay aad umaadi kar kartaa. saddexdaa shayga aad siisid waad heli kartaa: fikirkaaga, maalkaaga iyo waktigaaga. sidaad u siin lahaydna adiga ayaa garanaya. videoganna waxaan kaga jawaabi doonaa videoga xiga waxaan kaga jawaabi doonaa su-aashii labaad. haddaba videogan hadduu kusoo gaadhay si sheer garee, followna ii saar pagekayga xirsi oo ah abwaan axmed shawq abwaan meyno. haddaba videogan siiska gaadhsiya asxaabta kale. videoga asxaabta sii gaadhsiiy, asxaabta videoga sii gaadhsiiya. subscribe. mahadsanid walaal, aad ayaan kaaga mahadcelinaa daawashada videogan. halkan hadda soo gaadhay sharaf iyo qiimadiisas. mahadsanid, aad baan ku salaamay.